Soomaaliya sheekh ma la dhihi karaa waxay ku sii socotaa wadadii Andalus ay ku luntay ka jirta dhibta ka jirtana dadkeeda geystay dadku waxay jecel yihiin inay cid kale eedda saaraan dadku waxay jecel yihiin inay yidhaahdaan Ethiopia ayna jebisay waxay jecel yihiin inay yidhaahdaan gaalada inoo tashatay oo Maraykanka iyo Ingiriiska mayna waxayna la rabaan baad moodaysaa iyaga ayna qaybinayaan waxay jecel yihiin inay dawladaha jaarka China maxaa la yidhaahdaa Kenya iyo kuwan baa ina baabiyey waxa kama jira runaa soo sheego innaga isjabinay markaynu jabnayna waa laynaga faa'iidaystay waana sida caadiga bini aadamku u fakaro Ethiopia maxaa dantaada u raacatay soo doqonnimo maaha inaad la timaado meesha Ethiopia maxaa dantaada u raacatay waa doqonnimo Ethiopia masaalixdeeda ilaashanaysa wixii dan ugu jirto laakiin ana ahayd inaan maslaxadayda ilaaliyo joojiyo Ethiopia waxaan aniga maslaxadii ugu jirin ana ahayd inaan dantayda ilaaliyo joojiyo Kenya waxa ay wada hadaan maslaxadii ugu jirin ana ahayd inaan dantayda ilaaliyo Maraykan iyo Ingiriis baan joojiyo waxay wadaan hadaan dan ugu jirin Nabi Muhammad iyo saxaabadii markay jabaan lama oran Khalid oo xariifa idin helayo intuu dhabarka idin kaga dhuftay dabeetana wuxuu sidaa idin la dhigay lama oranin markay jabeen markay iyagu taktiigii nabiga khilaafeen ayuu Khalidna godololada arkay dabeetana uu ka faa'iideystay Khalid oo gaala ayaa wuxuu arkay godololada dabeetana meeshii dalosho ka soo dhacay dee muslimiintu tarab u dhigay dabeetana saxaabadii waa weyneeda la yaqaanay nabiga adeerkii waa markii la dilay Hamza iyo ragii la mid ah dhulka loogu tuuray markay muslimiintu yiraahdeen anna haadana ilaahi baa u jawaabo wuxuu ku yiri qul huwa min indi anfusikum qul huwa min indi anfusikum Malik ibn Nabi nin la oran jiray caalim muslim oo dhintay ayaa wuxuu oran jiray isticmaarku ma aha mushkiladii waa qaabiliyatul isticmaar bulay ninkii gumaysiga aqbali karaa la gumaystaa buleeyay gumaysigu walkii buu iska jiray cid rabtay in cid gumaysataa way iska joogtay nin la gumaysan karo baa la gumaystaa Soomaaliduna maxay yiraahdaan miskiin baa miska la fuulo leh markaad miskiinka noqoto ayaa dadku ku kooraysanaya marka Soomaaliya meel fog dib bay ku jirtaa dhab weeyaan taas laakiin dhibta Ethiopia ku haysa mise Kenya ku haysa mise Maraykan baa ku haya mise Caynkan baa ku haya waa dhibta inaga isku hayna inaga isjabinay inagana wali istilayna inagana rabna wali inaynu kala guurro inagaan tuulada ku xigtaa heshiis la ahayn tuulada ku xigtaa heshiis lama aha inay ka guurtaa bay doonaysaa marka haddaynu inagu aqal keenno lagu wada noolaan karana waynu dib u noolaan karnaa wadankeennina waynu joognaa waanaynu noolaan karnaa haddaynu aqli keeni weynana dawladna gumaysanaya adeer ninkaan tashanaynin waa loo taliyaa carruurta yaryar ma tashan karto marka waa loo taliyaa reer galbeedku waxay yidhahdeen dunida badhba wisaaya u baahan isma maamuli karaan in la maamulo u baahan marka ergeyga jimciyadda quruma ka dhaxaysa la inoo soo diraya sidoo inoola eego bal inaynu ismaamuli karra iyo waxaynu gaadhnay inay wax saxayeen iyo dhaqaalahaynu u baahnay inaynu kolba barino dhaano askartiina wax ma yeelin qoladaasina wax ma yeelin oo la yiraahdo fanka la idinku daraya projectka sanadka dambe EU da idinku daraysa ama USAID baa la idinku daraya warsi cidina kuma noolaato dadna laguma noqdo warsi cidina kuma noolaato dadna laguma noqdo warsi masaakiinta ku dhargi lahayd hadii cidi ku dhargayso miskinkan yaa la waxsiyeedun haya imisun buu lahaa yaa la waxsiye marka waxaan uga jeedaa Soomaaliya waa burbursantay dhibina way haysataa laakiin aniga aragtidayda dhibteedu ma aha gaal baa soo duulay dhibteedu waxa weeyaan aniga iyo adiga iyo adeerka iyo ka sii dambeeyaan istoonaynin haddaynu inagu aqligu lagu wada noolaado keenno gaaladu waxay yiraahdaan saddex dariiq baa jiro bini aadamku uu kala baxo bini aadamku inuu iscafiyo iska heshiiyo cid la yiraahdo nabad waa lagu kala baxaa bini aadamku inuu musaalaxa galo win-win solution waxay gaaladu yiraahdaan intuu soo yimaado inuu heshiiyo yiraahdo war balanaan guulaysta adnaad guulaysatide adna wax ka taganaa wax ka tago meel dhaxaan sugu nimaadna hore u soconana wuu kari karaa
bini aadamku inuu garramana waa lagu kala baxaa waa heshiin weynaya halla inoo gar qaado ilaahay kitaabkiisa cid inoogu saar inoogu gar qaada marjaca waxa la isku garramayaan isku waafaqno dabeetana aan garranno kala baxno haddaynu soomaalina saddexda midna ma ogolin inaynu shacfino iska wada noolaano ma rabno inaynu win-win solution compromise samayno ma rabno inaynu garranno ma rabno laakiin maxaynu rabnaa inaynu ismuquuninaynu weli rabnaa caqligu inuu shaqeeyo ma rabno weli waxaan rabnaa in muruqu shaqeeyo maalinba ninkeenna waxoogaa dabaabado yaro rooni inta kale inuu yidhaahdo ma idinkaa wax sheegi kara maalin marka laga yaro dabaabada roonaado inuu yidhaahdo maaday gumaysan karaa anna waan jabhaday marka waan halkeennii baynu ka wadaynaa sidii baynu u wadnaa 25 sano ama 60 sano ama 30 sano la sheegay saw baynu ku wadnay marka waxaan ku soo koobayaa gaalayna ma haysto cid kalena ma haysato inaga haysanee haddaynu inagu caqli keennana waynu jiri karnaa haddii kalena dee waa laynoo talinayaa ayaa aqbalaya in laynoo taliyo waxba Itoobiya ku xagxaganina ama Maraykan xagxaganina in laydin taliya aqbala wallahu a'lam